ölmüyor bak. Adam وسلامة صاحب يالكuna soo dhawaada kanaalkiina Amiir Tech insha Allah maanta muuqaalkan waxaan igula wadaagayaa sidee loo soo dejiyaa PUBG Lite-ka haddaba haddii taad markuu kanaalka soo boqotay fadlan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto muuqaalkan ha kiilowin markaas inaad like noo saarto aad bay wanaagsan tahay asxaabtayda qaaliga waxaan iga codsanayaa inaad channelkan aad share gareysaan si aan markaas aan u gaarno 10,000 subscribers aad bay wanaagsan tihiin saaxiibayaal maanta muuqaalkan waxaan rabaa inaan markaasi aan igula wadaago qaabka ugu fudud PUBG Mobile PUBG Lite-ka aad la soo degayso haddaba saaxiibayaal PUBG Lite-ku kuma jira Play Store-ka haddaba saaxiibayaal dad badan ayaa jeclaan inay markaasi PUBG Mobile ciyaaraan haddaba saaxiibayaal markaasi maanta waxaan kula wadaagayaa qaabka aad kula degi lahayd markaasi PUBG Lite haddana waxaan hore u gudageli doonaa markaasi muuqaalkan ayaan hore u gudagelaynaa tay saaxiibayaal waxaan ula wadaagayaa laba qaab oo aad kula soo degi karto markaasi PUBG Lite-ka labada qaab oo ah yacni qaab aad kala soo degaysa markaasi Telegram-kayga oo aan ku soo dhigayo oo haddii aad yacni aad tahay markaasi asxaab hore oo channel-kayga ku soo xidhnaa yacni waad kala degi kartaa oo application badan ayaan soo geliyo asxaabtayga u xiran ay yacni la degeen haddaba saaxiibayaal weli PUBG Lite-ka ma soo dhigin waxaan soo dhigi doonaa yacni marka intaan video edit gareynayo markaasi intaas ayaan kusoo dhigi doonaa marka saaxiibayaal qaab aad oola degto markaasi si aad loo degto waxaad sameynaysaa markaasi yacni waxaan nagu tusayaa markaasi application kale ayaan nagu tusayaa soo jeeda qaybtan falaadha ee Kinemaster application ayaad waxaad falaadhaas hoose aad ku dhufanaysaa kadib markaasi sidaas ayuu kuu wareegayaa marka kuu dhacana kadib waxaad sameynaysaa markaasi inaad dhahdo install ayaad dhahaysaa haddaba saaxiibayaal markaasi waxaan sameyn doonaa markaas qaab kaleete aad kula soo degaysa ayaan tusayaa qaabkaasoo ah inaad soo furto markaasi waxaad soo furanaysaa markaasi Chrome-ka browser-ka kugu jira ayaad soo furanaysaa kadib waxaad ku qoraysaa markaas qaybtaas iyo searching-ka ayaad waxaad ku qoraysaa PUBG Lite haddaba saaxiibayaal labada qaab midka kugu fudud inaad Telegram-ka aad kala soo degto iyo inaad kala soo degto markaasi Chrome-ka midka kugu fudud ayaad sameynaysaa kadib qaybta searching-ka ayaad waxaad ku qoraysaa markaasi PUBG Lite ayaad ku qoraysaa markaad PUBG Lite-ka aad ku qorto kadib waxaad sameynaysaa markaasi inaad dhahdo go fasaxaysaa haddaba saaxiibayaal PUBG Lite-ka hore waa kan haddaan ku dhufto Play Store-ka ku soo jiray marka saaxiibayaal soo jeedid waa laga saaray marka muuqaalkan ayaan markaasi rabaa inaan kula wadaago qaabka ugu fudud aad kula soo degi karto waxaad sameynaysaa markaasi inaad ka soo baxdo waxaan laga rabaa markaasi inaad la degto markaasi version-kiisa u dambeysay kaasoo ah yacni 0.23 kaasi ayaa la degaysaa oo yacni haddaan ka raadino waxaan la soo degi markaasi version-kiisa hore ahaa 22 waxaa soo baxay version-kii u dambeeyay kaasoo ahaa 2.3 kaas 0.23.0 subax kaya ku dhufanaysaa ma ku dhufano kadib qaybtan u koreeya ku dhufanaysaa kadib waxaa sameynaysaa markaas qaybtan ayaad waxa ku dhufanaysaa markaas ay ku qoran tahay download ayaad taabanaysaa downloadaas ayaad ku dhufanaysaa haddaba saaxiibayaal aniga markaad download ku dhufato toos ayuu adigu kugu dejin doonaa ani hadda uu degsan yahay haddaan qaybta falaadha kore haddaan imaado kadib aan kasii doorto download kasii doorto sida u jeedaan yacni ii degay oo haddaan haatan aan saa ugu dul lufto wuxuu leeyahay markaasi install haddaba saaxiibayaal markaas in install ay leedahay oo markaasi waxaad ku shubanaysaa mobilkaada gudihiisa ayaa ku shubanaysaa markaad ku shubato sidaasna waxaad doola degto markaas PUBG Lite-ka haddaba waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan aad wax badan ka faa'iideen bilaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh